بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani waa warbaahinta Albeeg wararka ku soo dhawaada warka warbaahinta qodobada aan idin hayno waxaa kamid noqonaya Omar Finish oo amara culus soo saaray dowladda federaalka Soomaaliya madaxda hogaamiyay nabad iyo nolol oo soo wada xisbiga nabad iyo nolol ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Dhuusamareeb ku wada howlgal ammaanka lagu xaqiijinayo al-shabaabna waxay ka soo saareen duqan ka dhacday Kuuyin Barow qodobada ay idin soo gudbin doona saxabiyaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 20 bisha 11 November 2019 u diyaar garow saxabiyaal fafaynta qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran ayna ku bilownay xildhibaanada labada gol ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay aqrin marsiinayaan si wada jir ah weeyane miisaaniyadda 2020 xildhibaanada ayaa waxaa la sheegayaa in lagu wargeliyay inay si wada jir ah aqrinta koowaad u marsiin doonaan miisaaniyadda 2020 waxaana arintaasi walaac kan qaar kamid ah xildhibaanada labada gol ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ay sheegayaan inaysan macquul ahayn in si wada jir ah akhrin hal mar ay u marsiyaan miisaaniyadda 2020 dowladda federaalka Soomaaliya gaaran xukuumadda ayaa waxay sheegeen arintaasi inay ka dambayso qorshe gaaran ay ka leedahay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya ee la magac baxday nabad iyo nolol ayaa waxay ku dhawaaqeen in mar dhow la soo bandhigi doono xisbi weyn oo lagu magacaabo nabad iyo nolol ra'iisul wasaarka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa waxa uu meer fagaara ka sheegay in la soo wado xisbiga nabad iyo nolol dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xisbigaasi taageero loo muujiyo laguna biiro dhalinyarada gaar ahaan ayuu sheegay in xisbigaasi ay ku biiraan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la hadalhayaa in xisbigaasi madaxda ugu sareysa ay kala qaybsami doonaan walow aan loogeyn in si wada jir ay soo wada bandhigi doonaan iyo in madaxda qaar xisbigaasi ay soo bandhigi doonto waa kan Mahdi Maxamed Guuleed oo arimahaasi ka hadlaya qabanqaabiyayaasha iyo cid kasta oo gacan ka geysatay haday tahay shirkadaha madaxa bannaan iyo hay'adaha kaleba in maanta aynu isugu nimaadno shirkan sanadkii labaad soo maaha ee Muqdisho Tech Summit waxaan filayaa ciwaanka ama ujeedada ama halku dhaga maantu waxa weeye dhalinyarada iyo doorka ay ku leedahay sidii xuluul midho dhal ah loogu heli lahaa ummadda Soomaaliyeed dalkeena ugu heli lahayn xuduudda dhalinyarada inagoo ka faa'iideysanayna technology-ga iyo aqoonta iyo waay aragnimada casriga ah waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada labaad ee shir madaxeedka Muqdisho Tech Summit ama shir madaxeedka teknolojiyadda ee Muqdisho hal abuurka dhalinyaradu waa muhiim dhalinyaradu maanta dhalinyaro ismaqla aynu ismaqalno marfash lagu qaylo ayaa koone iyo koone dadku ka sheekaystaan oo buuq iyo yulqan baa dhaca inna qoladii marfashka waxay u bixisay ciidagalow isdhageyso marka ayaanay naga noqon ciidagalow isdhageyso aynu isdhageysano aan ismaqalno waxaan u mahadnaqayaa run ahaantii mar labaad qabanqaabiyayaasha shirka waxaan doonayaa fursaddan inaan uga faa'iideysto inaan u hambalyeeyo sanadka labaad ee isu imaatinka iyo teknolojiyadda iyo Muqdisho waxaan u tacsiyadeynayaa Allah u naxariistay Khalid iyo dhalinyaradii inaga dhimatay ilaa sanadkii hore markii shirkan oo kale aynu isu nimid waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu u naxariisto inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo oo uu ka abaal mariyo gacmaha ka xaqada daran ee dilay dhalinyaradu waa cududda iyo xoogga shaqaalaha ee dalkeena maanta 70% iyo 75% ku dhawaad shacbi weynaha Soomaaliyeed ama population-keena waxa lagu qiyaasaa inay tahay dhalinyaro taa macnaheedu waxay tahay Soomaaliya rajo weyn bay leedahay Soomaaliya mustaqbal bay leedahay Soomaaliya waxay haysataa xoog ay ku faanto cudud ay ku dhiirto oo ay ku yidi diiloto oo ay dheer tahay dunida inteeda kale siyaasadda dawladda iyo aragtida madaxweynaheena ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddu waxa weeye in la abuuro siyaasadii iyo shuruucdii suurtagelin lahaa dhalinyaradu inay muruqooda maalaan inay maskaxdooda maalaan inay isku tiirsadaan inay kaga baxaan fikirka ah aragtida qaldan ee wax duminaysa aragtida qaldan ee dib inoo celinaysa aragtida qaldan ee nabaabiinaysa kuna bedelaan
aragtida saxda ah ee toosan oo ay ka mid tahay maanta aynu isugu nimid shirkado Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo cududeeya ra'yiga iyo fikirka isu geeyay in ay maanta dhaqaajiyaan buuro intaasoo dhalinyaro isu timaado fikir iyo maskax curiyaan kaga hadlaan mawaadiic muhiim ah oo dalkeena faa'iido u leh ama ha ahaato hal abuurka iyo doorka dhalinyaradu ku leedahay wax soo saarka kalluumaysiga iyo beeraha haday tahay isbeddelka cimilada oo inagu aynu u nugulnahay Soomaaliya mar walbana daadad inta ay oo roobdo daadad fatahayo dalagii baabiinaya wax soo saarkii baabiinaya dadkii barakicinaya iyo haddana marka ay roobabkii naga tagaan abaaro ba'an oo inagu dhufta oo ina gaarsiinaya macaluul iyo in aan dadku u nuglaado oo u adkeysan kari waayo xaaladaha noocaas inaan maskaxda tuujino oo aynu ka fikirno sidee baa looga bixi karaa sidee baynu uga gaashaaman karnaa waa wax aad muhiim u ah weeyaan dhalinyaraduna door weyn bay ku leedahay inay tiraa dalkeena aan u sara kacno aan isu taagno inaan munaafacaadka kala duwan ee kalluumaysi leh ee beera leh ee macaadin leh ee wax soo saar leh ee aqoon leh aynu inagu ka faa'iideysano maskaxdeena wax kaga qabanno iyo inaynu u caqli celino dhalinyarada la khalday ee aragtida khaldan ee la soo waariday in diinteena salka iyo raadkaba ku lahayn ee lagu khalday lagu jahwareeriyay ee naftooda haligaya inaad la doodaan wadada saxda ahna ku soo ridaan marka dhalinyaro dalka idinka iskale shaqo weyn baa inoo wada taala shaqo weyn baa gaar ahaan idinka idin sii taala waayo kontonka ama 60ka ama 100ka ku dhawaad sano ee soo socda dalka idinka u aayaya idinkaana marka waxaan leeyahay halka kaga sii haya cududiya maskaxda isu geeya ku tartama fikir iyo hal abuur ha ku tartamina qabiil ha ku tartamina gobolaysi waxa ku tartantaan seennu isugu nimaadnaa fikirka isugu darnaa waxna u qabsanaa horumarna u gaadhnaa waxaynu ku jirnaa waliba dhalinyarada haddu dunidii koona ilaa koona maanta technology-gu waa fududeeyay waxa tihiin generation.com shirkadaha isgaarsiintu waa ku mahadsan yihiin iyo technology-ga cusub ee maanta aynu haysano ee ku suurto gelinaya adigoo xamar jooga inaad New York u dirto baaq ama hadda aad arki kartaan walaalka ama ehelkiina oo jooga ama warka ka soo baxay inaydun kaga faa'iideysan kartaan dhalinyaradu waxay door kale oo muhiim ah ku leeyihiin sal u dhigida hay'adaha dalka siyaasadda iyo doorashada 2020 ee soo socota oo ay filayo sanadkiisa halka maanta saddexda mawduuc ee waaweyn ah isbeddelka cimilada iyo isku fulaansho cunto in la helo maalgashiga iyo wax soo saarka dhalinyarada iyo shaqo abuurka inaad ku soo dari doontaan mawduuca doorashada 2020 ama 2020 sidee loo gaari karaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Firishna waxa uu soo saaray amar culus gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Firish ayaa amar ku bixiyay in bisha September ee sanadkan laga baxo dhulka kooxda ciyaaraha milishiibiyada shalay ayuu booqday garoonka milishiibiya magaalada Muqdisho halkaas oo ay degan yihiin dad shacab ah isagoo sheegay in la ogolaan doonin in dadku halkaan ay sii deganaadaan shacabka ayaa waxa ugu baaqay in halkaas ay guuraan guriga kalena ay raadsadaan arrinta ku aadan yani meelo dad u dhisan oo kooxdu ay lahayd oo uu ka mid yahay garoonkii basketballka waa la ii sheegay waxa kale oo la ii sheegay baarkii minishiibi ayaa la ii sheegay meelahaas waxaan u qabanaynaa dadka degan annagoo uga mahad celinay inay nagama haysana way noo haayeen maanta maadaama aan nimid oo aan soo kabanay inay nagu soo wareeji doonaan ayaan rajaynaynaa haddii alla idmo ilaa bisha hadda dhalanaysa December 1 marka kulay meediyaha ay kala doonaan akhbaarta ma rabno inaan waxaana isku qabqabsanay mar haddii aan milkiyad nala sheeganayn inay nagu daahin waa rajaynaynaa waxa kale oo rajaynaynaa inaysan naga haysan ay noo haayeen باذن الله الكريم dhalinyarada in garoonkii kooxda Muqdisho ay dib u soo noqoto oo gacanta kooxda ay ku soo noqoto dhalinyarada ka shaqeeyay maamulka liiga ma shaqeyn waa garan karnaa dhalinyarada si gaar ah uga mahad celinaya dadaalkiina sii wada sida kanba aad uga dhigteen garoon ay leedahay kooxda dawladda hoose kuwa kalena ka shaqeeya haddii alla idmo
gaarsiiyana fariinteenna dadka meesha degan waa fahad ma rabno annaga iyo mataqaanaa bulshadeennan aan madaxda u nahay inaan xoogaa buuq iyo isqabqabsi iyo dacwo qeyle ayna dhex gasho waxaa kaloo rabaa inaan dadkaas ogeysiiyo yacni dhammaan guryaha la kala haystee magaalada muqdisho meel walba ay ku yaaliin waxaana loo kaga fadhiyo mas-uuliyaddana saaran oo ay tahay inaan qofkii iska lahaa gacanta u gelino kuna ilaalino weliba marka iyadoo soomaalida ay intaas naga sugayso ayagaaba wuxuuda la haystaahe maxaa wax kale aan ka rajaynaa guud ahaan warkii ka daawanayseen warbaahinta Albeega wararka waa naga intaasi nabadgelyo.